يا هذا الكبضن با أنا هالك اللي جبها هي وحن شاء الله هاي إن أنا أدوق ما هاد نقو ما ده حدا حزب كل مية أرتا وحي بكوفي عن تهاي كل مية الشيب أولي هي بولي متقين مركا برالي الله يقاهدو أنكو عليو وحنو ما أدنغيا مدحدا حزبيغا وداني إيو تاغيرياشيسا إنا مرتقات كان أنكو خاتمان موفديان مرو البنا إلى أنتي أن وضع هذا الكلق اللي دولة الصومالي الآن حزبك وضعني مدحديسو مرو البتاغيري لقرب تاغنيد وضع هذا الكا إيه هشيسياد اللقلي آديات بهم أتسيهين وأهرنا أنني لا وينين وأبالي نوقلينا نمروا بحسوسناني وحان ربائينا إنان مقالة برعو هي مدحدي هي شعب كيدنا آد وقوم هدنقو برعو ووضنها الصومالي الآن وحا أنا أي مدنتهاي إن لو أقادو إنتي هوري مقالة برعو يدد كيدو أي قبنما دومنما هاتو كعتان مربق قضيض وحي تايهات إن يدور آديات وين أي تاريخ كلها هايين هدنا اللوغة منهم فرديو وحان مغلينا سرر دورة ومقالة اللوغو تلقلي وحان رجيننا كواسو إن اللوغو قوليستو وأي هرقلان وحان قبا سرر كاسدي لقبتو oo lagu guuleysto inay wax weyn oo weyn ka tari doonto Soomaaliland koritaankeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeedaba reer Burco arinta idinka la idinka fadhiya waqtigan aynu joogno wax badan oo isbedel iyo kacdoon ka socda geeska Afrika oo dhan inta af Soomaaliga lagaga hadlo dhan waxaan qabaa oo aanan ka marin habaabayn in Somaliland door weyn ay ku leedahay horumarka iyo nabadda iyo midnimada inta af Soomaaliga ku hadasha waxaan qabaa inaan laga hadhi karaynin isbedelka iyo kacdoonka geeska Afrika ka socda waxaana mudan hawshu maamul iyo dawlad iyo maamul jira maaha siyaasadda karkarinteeda iyo qaaxideeda iyo aragti dheer oo laga sugayo waxa leh xisbiyaday tahay inay waxan soo bisleeyaan inay ka soo doodaan inay tilmaamo ka soo bixiyaan loolanka siyaasadeed kuma eka marka doorashadu jirto xisbiga guuleysta wuxuu noqonayaa ka intaan looba dhaqaaqin doorasho iyo tartan iyo xifaaltan cidda isku mashquulisa arrimaha ummaddu ay leedahay oo loo baahan yahay in aad looga doodo oo maanta wax weyn baan halka ka bartay arrintan niqaabka loo xidhanayo waxaan u malaynayaa inaan meel fog lagu gaadhayn niqaabkana aan iska dhigno golayaashana dooda looga baahan yahay geesinimadu meeshaasay ku jirtaa geesinimadu maaha
hub la qaato geesinimadu waxa weeye waxa dhabta ah ee ummadda hor yaalla ee la kala doordooranayo ciddii tilmaanta oo qeexda waxa loo baahan yahay inta badanba waa laba daran mid dooro wax xun iyo wax wanaagsan wiilka yar ee 5 jirkii wuu gartaa laakiin laba daran mid dooro waxa uu ka talin karaa cidda cadna u ah geesinimana ay ka muuqato arrinta ugu culus ee Somaliland maanta hortaala aniga aragtidayda waxa weeye arrinta dhalinyarada iyo waxbarashada dalkan taala arrinta dhalinyarada iyo haddaan si fiican looga fakirin meelaha wax laga baranayo ama iskuulaha ahaadeen ama jaamacadaha ahaadeen haddaan arrimaha laga fiirsan haddaan arrimaha la xidhiidhin maxaa suuqa looga baahan yahay maxaa looga baahan yahay kartida iyo aqoonta looga baahan yahay maxay tahay manhajyada iskuulada iyo jaamacadaha inay axsaabtu ka doodo in arrintaas si fiican looga doodo oo waxa ugu mudan la abaaro Somaliland kama duwana adduunyanaha waxa ka dhacaya الربيع العربي أما كعدون كده لك عرب تكدعي وحا أقوينا دليرا وحبرتي أو أنشغل الله هين وحانا مغليا أو لقوبة فانفانا إلى اللي حكم تضبكن أو أرضي يا جامعة ده الصومالي لان كبحا انتبه شغل الله هيا انتبه عليه حرفدي يقونتي لوبانا أو كسوبرتي اسكولة يا جامعة ده wadani hadduu rabo inuu kasbado dadka waqti waa inuu geliyaa khibradii hore aynu lahayna waa in dib loogu noqdaa cid alaala ciddii aynu uga faa'iidaysanayno adduunkana waa in adlub alcilma walow kaana fi siinki xadiid nabawiga waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dhibaatooyin baa Somaliland ka socda maantana waaba maqlayay nin oday ah oo midhayn gudoomiyaha awdal gobolka awdala hadalka uu ku hadlayay hadal la dhayalsan karo maaha kuwa bari ka socda ceergaabo ka socda dee waxaan u malaynayaa Soomaalida waxay tidhaahdeen tuke iyo xuusha midba war la weydiiyo waxa la yidhi tukow goormaad wax dareenta markaan arko laba qof oo wada hadlaya xuunshana waxay tiri waxaan wax dareemaa marka nabarku ama igu dhaco ama agtayda ku dhaco haddaan la dareemin haddaan garowshiya laga bixin haddaan loo dadaalin dhibaatooyinka la tilmaamayo wala Somaliland meel fog baa laga dooni doonaa anagu taayadii kuma soo koobaye insha Allah Somaliland la wada leeyahay yaynu ku guulaysan doonaa waana mahadsantiin